عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waa salaamantihiin. waa company-geena Forever Living Product. halkan maanta waxaynu igu soo gudbin doonaa qeybta caafimaadka, gaar ahaan qeybta loo isticmaalo lafa xanuunka, xuruqa xanuunka, xididada iyo sidoo kale daalka badan loo isticmaalo. sida idinka muuqata halkaa wuxuu ka kooban yahay productigani 4 qaybood. afartaa qaybood qeybta koowaad waxaa la yidhahdaa Forever Freedom. Forever Freedom waxay aad iyo aad ugu wanaagsan tahay, waa calcium tiyo dareeraha, waxay aad ugu fiican tahay shaqada lafaha iyo dhaqdhaqaaqooda intaba aad bay ugu wanaagsan tahay, oo waxay yareysaa inay laftu isgaadho amba isqabsato oo iscunto iyadu ayay yareysaa. ta ku xigta waxa weeyaan waa calcium tea oo kaniina, sida research caalamiya amba warbixino caalamiya ay sheegeen, qofku mar walo oo daadiisu sii korodho waxa yaraada calciumta lafihiisa ku jirta. sidaa daraadeed qofku mar walba wuxuu u baahan yahay inuu calcium dibadda ka qaato. sidaa daraadeed calciumtu mar walba iyadoo sidaa inoo muhiima, tan waa calcium tiyo oo kaniina, waxay aad iyo aad ugu wanaagsan tahay tayeenta lafta, inay laftu calcium fiican ay yeelato oo tayadeedu fiicnaato. waxay u wanaagsan tahay neerfaha, oo calciumtu qofku haddii ay hoos u dhacdo waxay keenaysaa in neerfaha iyo xididda xanuun badan uu sameeyo, sidoo kalena qofku daal badan u yeesho. waayo waxyaabaadkaas oo dhan waa waxyaabo intooda ugu badan calcium ku shaqeynaya, marka intaaba way ka anfacaysaa qofkii. ka ku xiga waxa weeyaan kaniin la yidhaahdo Active-hagu isagu wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay isgoysyada. laf walbaaba meesha iskugu timaado carjow ayay leedahay, sidoo kale biyo yarna way ku jiraan, taasoo u sahlaysa socodka lafta. haddii intaasi hoos u dhacdo lafta yar ay ka dhex baxaan dareeraha yari, laftu way isqabsanaysaa, kadibna carjowdii ayaa meesha ka baxaysa, laftiina caadi bay isku cunaysaa. kan Active-hagu wuxuu ka hortagaa, uu siyaadiyaa biyaha lafaha dhexdooda ku dhex jira ayuu kor ugu qaadaa, wuu duxeeyaa lafta oo mid duxaysan ayuu ka dhigaa oo aan isqabsanayn. sidoo kalena carjowdana wuu nooleeyaa oo carjowda kor ayuu u qaadaa si carjow fiican ay laftu u yeelato. wuxuu ka hortagaa inay laftu iscunto oo laftu isqabsato ayuu ka hortagaa. sidoo kalena dhawaaqan markuu lafuhu hoos u dhacaan ay isgaadhayaan, qababacda ay gurayaan amba shanqadha sameynayo dhan wuu yareeyaa, meeshana wuu ka saaraa. ka ugu dambeeya waa cream amba bomato, taas oo la marinayo muruqyada uu qofku ka cabanayo o dhan iyo xanuunka uu ka dareemayo dhan uu marinayo. habeenkii markuu sii seexanayo ayuunbuu marinaya, hal waqtina wuu marinayaa. intaas waa inta loo isticmaalo lafa xanuunka, xuruqa xanuunka, xidida xanuunka, daalka badan iyo muruqyo xanuunka intaba loo isticmaalo. qofku 3 bilood buu wadaa, laakiin bil ayuu qofku isticmaalaa, badi dadkana bisha ayaaba ku filnaataa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.